Abiyaab inkastoo mahadhooyinku ay yihiin qaar isbarkan haddana kooxi ballan rasmiya kama haysato inay ahaan doonto mid sidii toddobaadkii hore u dhowlacadaysa. Arsenal golin horeba madficii waa ka qoyay oo Sabalosay waa Sambalolshe ayaa noqday mid biyaha hoos mariya. Hogashii curatay ee Anfield ku heshay Arteta iyo inamadiisa waxay ahayd mid ka timi dhakada salaxan ee aan timuhu ka soo bixin. Foodheeri jahada loo dhigay la yidhi cashariga baro. Koox la soo shir tagtay keliya inay koonayaasha madax ku duwaan balse sifo kale aan aqoon in loo guulaysto. Balse haddaad dhibic rooba ama daruur iyadoo cirka daruuri joogta aad aragto marnaba guulaha ka sugin Arsenal. Sababtoo maxaa yeelay madficii kabriidka lagu shidayay ayay weli isdaba wadaan oo waxba automatic maaha. Hore ayaanu nidhi nooca rumoodada lagu hago iyo kombiyuutarada iyo moobelada soo adeegsada oo markaasi Premier League u soo xaadira. Sabalosay Sambalolshe ayaana noqday midka gaarka wadna gooya. Kulan muhiima maalintii maalmaha ka tilmaanayd Arsenal oo harageeda lagu tukaday. Aqli xumadiisa Arteta ninkii sida weyn loo hadal hayay oo kursiga kaydka ku soo bilaabay sidii inuu ka macaashayo sawirada laga qaado. Waa madiirayaal aad si kastoo aad ugu dhaga hadasho oo canaanato oo aad weliba u canaado aan marnaba ahayn kuwa golaha kaftanka ka dhiidhiya ama wuxuun ka jirdubaaxiya. Kulankan oo loo arkayay mid xilli hore uu hanashada horyaalka saameyn ku yeelan kara labada kooxood ayaa muujiyay adkaysi difaac. Arsenal waxaa dhaawac kaga maqnaa xidigooda ugu muhiimsan ee Bukayo Saka. Inta kale maxaaba hadda talowniyo waxay difaac adag yeesheen inta badan ciyaarta hase yeeshee waxay ku guuldareysteen inay ka hortagaan kubaddii dahabiga ahayd ee Sabalosay intuu barxadda dhigtay. Raya yidhi ma tahay mid khibrad u leh meeshaan dhigi karo iga baro waa cashar kuu dhinnaa ee meel ku qoro. Mar kale guriga markaad tagto dib ka daawo meelahaan dhigayo waa casharada ka maqan Rayowe. Liverpool ayaa hore looga diiday gool sababo la xidhiidha offside halka difaaca Van Dijk iyo goolhaya Alisson ay difaacasho adag muujiyeen dhammaadkii ciyaarta. Natiijadan ayaa ka dhigan Liverpool inay sii wataan bilowga guulaha ee Premier League halka ay Arsenal ku fashilamtay inay wax dhibaca kala hooyato Anfield. Tareenkii madficii waa u qoyay tareenkiina xadiidkii ayaa dhammaaday. فهمت علي شيء كله كلام. أرسنال ودنا لقوينيسين أول ما إسكا سكرادا يلي سو يدونا كبدرون هير كلابات كتيمي أيوم باد كسو تونستين إنا سيدن كادك تيم بانو مودي نواد ديار قرودين كوحي لغا تشادي كوي تبابو شوبي إيو كوي لو تليي متكودنا متهيدين أرتيتا دي ملايين معالسيي واكا سوردا كمعاشيا كيلا إسلاها وفردامين يا مالنتان إسيدا وين لوغا هادلي هادبا محوكو قودمي Arteta oo ku sharaxay sababta uu kursiga kaydka u dhigay Isa oo dhawaan ka soo wareegay Crystal Palace ayaa la soo galiyay ciyaarta daqiiqadii 70aad isagoo bedelay Gabriel Martinelli balse kama uusan badbaadin Gunners guul darrada. Markii la weydiiyay sababta uu kaydka u dhigay Isa Arteta ayaa yidhi wuxuu nala joogay 4 ilaa 5 maalmood oo kaliya. wuxuu helay waayo aragnimo fiican maanta. waayo aragnimada halkay joogta xaajaduba way adkayde. waxaan si buuxda u aaminay ciyaartoydii garoonka ku soo bilowday. Isa ayaa rajaynaya inuu kulanka xigay Arsenal uu ku soo bilowdo marka ay la ciyaarayaan Nottingham Forest kadib fasaxa caalamiga. daayirkan khadka dhexe xulka England ayaa lagu qiimeeyay mid ka mid ah saxiixyadii ugu muhiimsanaa xagaagan balse kooxdii uu yimi garan weyday kursiga kaydkana soo dhigatay si sawir looga qaato. ma kuwaasi ka macaashay ninkan ma waxay inay sawir laga qaado ay sariftaan bay doonayeen maalin garoonka in la soo galiya ahayn. rag baa qaar kooxaha markay saaw yimaadeen maalin markay joogeen maalintii labaad baadir garoonka xamaalo la yiri. waxaana taageerayaasha Gunners ay ka filayaan inuu kooxda ku soo kordhiyo hal abuur iyo xirfad sare. ninkii idin maamulayayba soo kan inankii kursiga kaydka dhigaya waryaale Yunus walla reer Arsenal. taageerayaasha Arsenal way qowdameen laftarkooda oo furka ayay tuurteen waxaana yiraahdeen waxa iska leh sababta guul daradan xidigan Ibrahim Isa waxa uu saameyn ku yeeshay kulankani muddadii daqiiqadaha ee uu garoonka ku jiray. haddii uu bal lagu soo bilaabi lahaana bal ka waran. qaar ka mid ah falcelinta taageerayaasha Isa waxa uu sameeyay wax ka badan Martinelli 5 daqiiqo gudahood.
mid kale ayaa isna ku qowdhamay farqiga tayada kubadda u dhaxaysa Ise iyo Martinelli waa habeen iyo maalin la kala tag waa la kala garan abyaabteen isbiqlamasi Ise wuxuu wax ka bedelay ciyaarta 5 taabasho gudahood kaasuu kursiga kaydka ku haya habaar qabahan fooda dheer waa damiin cabsidiisa asaagii ka reebaysa iyadoo bandhigiisa Anfield soo jiitay indhaha taageerayaasha waxa suuragal ah in Ise lagu soo bilaabo kulamada xiga xilliga fasaxa caalamiga laga soo noqdo maadaama durtaba uu muujiyay awood iyo halabuur uu kooxda ku caawin kara balse kan adeegsanaya uu yeedhay lacagta yiri iga bixiya soo kan adeerga caliya kursiga kaydka dhigay sidii inuu ninku nasiino yimi meesha waryaale ninku ma safar dal kale abu ka soo galay miya la iswaalaya meesha haddaba Arne Slot ayaa sharaxay sababta Arsenal ay uga adkaadeen iyo waxa ay sameeyeen Salot ayaa ka hadlay shirkiisa jaraa'id oo yiri qaybtii hore waxay go'aansadeen khatar inay qaab hal ah ku soo weeraraan goolkeena annaga way nagu adkeed inaan ka hortagno maxaa yeelay khadkooda dhexe waxay soo dhigeen meel aad ugu dhow difaaca taas ayaa sababtay in qaybtii hore ay iyagu gacanta sare yeeshaan waxaanay nasaareen cadaadis weyn labada kooxoodba kubad fiican ayay soo bandhigeen qaybtii labaad si fiican ayaan u cadaadinay ugu dambeyntiina waxaan u baahnayn waqti sixir ah si aan guusha u xaqiijino kuma fakarayno xeelad gaar ah ay sabab u ahayd guusha balse labada koox waxay muujiyeen xakameyn wanaagsan 90 daqiiqo waxaana loo baahnaa 1 daqiiqo oo mucjiso ah si loo kala baxo tiina waanu samaynay natiijadana waxay ka dhigan tahay in Liverpool hogaamiyayaasha Premier League ay yihiin iyagoo helay 9 dhibcood 3 kulan ee ugu horeysay ninka shaqo taga ee diyaarsan ee baahidiisa ku turjumaya waa kan oo kale Arsenal oo la filayay inay noqoto tartamo weyn xilli ciyaareedkan ayaa khasaarisay fursado muhiim ah halka Liverpool ay muujisay awood ay ugu difaacan karto horyaalka si xoog leh cid hor istaagaysa miyay jirtaa kuwii la isla weydiirayeenba soo kuwa sidoodii madiirayaashii noqday madficiina istaba wada bahalkii xumaa ee iska qoyayay haddaba Szoboszlai iyo mucjisooyinka uu ka sameeyay Dominic Szoboszlai oo taageerayaasha Liverpool xasuusiyay Gerrard micnaha tiro koobka Szoboszlai waxa uu dhaliyay goolkii guusha Liverpool daqiiqadii 83aad isagoo si toos ah uga dhaliyay laad xora tani waxay ahayd goolka ugu dambeeyay ee guul lagu xaqiijiyo direct free kick ee Liverpool kaga heshay horyaalka Premier League tan iyo August 2007 markaasoo Steven Gerrard uu daqiiqadii 87aad gool oo laad xora kaga dhaliyay kooxda Aston Villa waxa ka dhigan in Liverpool muddo 18 sano ku dhow aysan helin gool lagu xaqiijiyo oo laad xora toosa daqiiqado dambe ilaa Szoboszlai uu jabiyay recordkaas oo middo ugu tiirsanaa Steven Gerrard halkani ma rabtaa inaan ku sameeyo liiska goolasha guusha Liverpool kaga yimaada laadadka xorta ee Premier League tan iyo 2000 xubnaheena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa taana haddaba Szoboszlai hal shoot iyo hal gool fahamta xaleyn ninka shaqo tagay waa kan oo kale yaa waxba kaaga ma baahna waa wonderba ayuu mucjiso kuugu sameynaya Michael Marino xidiga la yiraahdaa headmapka direction of play-giisu maxaa ka galay ayuu ahaa meel kasta garoonka cagta uu soo dhigay goobihii saxmadda ahana waxa uu ahaa kuwa ka dhex shaqeynayay ee ka adeeganayay kulankan maalintan maalmaha ka tilmaaman Declan Rice haba dhaqdhaqaaqay garbihii uu ka dhaqaaqi lahaa iyo saaxiibadii la wadaagi lahaa ma aysan jirin meel kasta garoonka waa u taagnaa dhibcaha direction of play-ga ku tusinaya waa touch mapkiisii meel kasta oo kubad ku taabtay Ricardo Calafiori headmapkiisu isaguna waa kan oo qaybihii saxmadda ahaa ayuu daadguraynta qayb ka ahaa jeex dhan oo garoonka ayuuna ahaa kuwa hadduu alaba ku rooyahay ka soo daabulayay ee xamaalinta balse de muxuu sameeyaa wuxuu daabulo soo taacirka loo mariyay markii dambe ee laga adeegtay Victor Gyökeresna waa kan waxaad moodaa in la yiri liidka mariyo liidka halkaana afar ku samee halkaana saayinta u soo marto halka ka soo gal adeero gacaliyo sida lama amaanayn dhaqdhaqaaq fara badan inaad samayso ay haydo faandaajka iyo waxa kaanootay iyo waxa halkaas u taagan aad saa u sii dhex cararto wax kale weerarku haddii xitaa ku badi weyman weyda waynu difaaciyahanadan dhex yaaca way isu keenkeena marunba jiraysa laga soo dhex dusiyadii waad ka adeegato iyagoo wada jooga ama saaxiibkaaga kale garabka saaran uu ka adeegto isna waxaad moodaa in loo calaamadiyo goobaha uu garoonka ka joogayo Arsenal iyo Liverpool
83 ayay badisay Arsenal 66 kulanna barbara ayaa la ahaa 95 waa ciyaarta ka hor sawirkan 96 guulood ayay Liverpool iyana ay la carowday waa la iskaranayaa meeshan la kala guuranog la kala goosanog maxaan niyo iska xiijinaya United oo tabcaana iyo Leeds oo kaba sii darano heerka labaad ka timi markii qorweynta la isarkayna Arsenal way ku ciirtay laakiin nin adeegan yaqaana waa ninka TikTok akhtar kaun qaata saddexdii kulanba Bournemouth Newcastle iyo Arsenal ayaa haragooda la tubtay maryahana laga calaashaday ya maraqsaar faracada laga tumay ma fahanti ya ninka shaqo tagay waa noocan oo kale Tottenham Falatacione ya Liverpool asasku waa diyaarsan waxay leeyihiin anagu bankan u joognaa oo taaganay horyaalkana waanu haynaa kuwa difaacanaya waa naga yaa kale Arsenal baa tiraadeen weydi ka baalkeysanto weydi la tartamaysaa waa naga harageeda ku tukanay yaa naga daba iman karo kale hambalyo reer Liverpool in la iska hadlo ma ahe nuxurkii waad haysaan ya jada duusilayad ruuxe Liverpool mooyaane ma cid kala sidan samayn karta xubnaheena kala aan guda gallo kooxda Man City oo harageeda lagu tukaday kooxda Man City oo dhulka lala simay inta laga daba yimi oo waliba taariikhna lagu sameeyay James Milner ayaa hoombarada ya mar kale halkan ku furdaamiyay haddii uu Liverpool ugu godgalay Man City inuu xilliyada xul sidani oo kale qac iyo quc kaga siiyo halkan hoombaradana waa ugu yimi oo dhibcaha ayuu ku yiri Guardiola xaaladdu waa ku xuntahay xilli halan goolka furitaanka daqiiqadii 33 dhaliyay oo ahaa kulankiisii boqolaad ee Premier League laakiin Brighton ayaana ku laabatay ciyaarta markii James Milner uu rikoodho u dhaliyay daqiiqadii 67 waxaana guusha u saxeexay Benjamin Groda oo dhaliyay goolka daqiiqadii 90 kuba dhameeyay ayuu yiri kuwani diyaar ma aha hoombaradu way taqaanaa sida loo quwad jabiyo noocan oo kale 2024 November ayay sidani oo kale dhacday 2-1 lagu dubtay 31 August 2025 misana hoombaradu harageeda ayay ku tukatay kooxdii Man City ahayd wallahi bille Man City way milmaysaa baan ku yiri ya way milmaysaa nimankan ayaan dara haysata 23 August Tottenham ayaa 2-1 iyagoo gurigooda jooga ku garaacday iyagoo maantana hoombarada gurigeeda jooga ayaa 2-1 lagu garaacay 31 August hoogayo go'ay ya abiyaabteen waxaasa wax ka saasan ku tartamaya kulay waan diyaarsana sanadkii hore waxba naga qarba ahay beeb dadku waalaya 12 shuud ayaa lagu tuuray 7 ayaa lagu aadiyay kooxda Man City 12 bay tuurtay 3 ayay ku aadisay ku badaysashada waa 36% Brighton 64% halkay ka tahay Man City way ku xarago bila natiija 309 baas oo ay samaysay Brighton 230 ayaa ahaa maxaa ka galay halkii loogu tala galay ku dhamaaday 550 baas oo xaraga 460 baas ayaa halkii loogu tala galay ku dhamaaday oo igu sawira oo bila natiija 17 tackle iyo 14 tackle 16 foul iyo 14 foul kornayaashu waa garba siman waa 3-3 halan waxay u ahayd kulankiisii boqolaad ee Premier League 8 gool la waa u dhaliyay Manchester dad baanu meesha ku hayn sidoo kale wuxuu ka mid noqday most Premier League goals in August bisha August waa ugu jecel yahayba ya bilaha August 44 game oo ciyaaray Andy Cole 25 buu ku dhaliyay Ferdinand 47 game oo ciyaaray 22 buu ku dhaliyay Haaland 13 game ayaa 22 gool lagu dhaliyay bisha August fahamta calay shay kullu kalaam la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulayso marka Man City de shaqo diyaaru maaha ya nimankii adeeganayay waa nimankan de aakhirataanka gagabinaya kulamada waaweyn marka Brighton iyo James Milner Tottenham Falatacione baan leenahay dhinaca kale kooxda Barcelona oo harageeda lagu tukaday taakana loo dhigay maraqeedana la cabay xilli garba siman ay ku kala baxeen Rayo Vallecano oo kamida kooxaha caqabada ku ah kooxdani Barcelona 12 sano kadib ilaa 18 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay clean shoot kala soo baxdaba garoonka Rayo Vallecano haddii garba siman lagu qabtayna way dadaaleen wax kasta way sameeyeen Yamal galin horeba ugu aftaxay goolka kadib markii rikoodho loo dhigay nin la yiraahdo Perez ayaa daqiiqadii 67aad yiri iska keen
ninkii Iisa ahaa isna dhakada salaxnaa habeenkan waa ku miisay koornayaasha dhinaca baashna uu ka soo gelay Yamal iyo Barca way dadaaleen balse taariikh soo jireena ayaa xakamaysay ayaan oran karaa reer Barcelona wax kastaba sameeyay goolkaasina caqabad buu ku ahaa inay hore u gaadhaan oo markan kaleba rikood ayay ku gaadheen 18 sano iyo 49 casho uu jiro xidigan Lamine Yamal waa xidigii u horeeyay intaasi jira waqtigan penalty kulan sidiisa u socda isla goolkii koowaad natiijada kulanka noqonaya ku shuba war waxani waa macjis uu meel kasta uu isku qoraya markan rikoodha u dhigtay lahaa Rafinha iyo namadii baa jooga laadan jiray muxuu yar ku qaatay anigu taariikh buu uga socday laakiin Barcelona waxay dhoola cadeyn u tahay in la hakiyay Real Madrid hubintu waa kariskiya kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike intaynu midda xigta ku kulmi doono oo isla karsashada iyo suuqa waxa laga sii oran doono xaaladu halka isla mari doonaan iyo waxa kale lagu kala qowdamo intaynu isugu iman doono inta ka horeysa sida yaamaana la saaxiibayaal